Soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa cilmi inaydin barataan oydaan noqon xawaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. kusoo dhawaada barbaarsama channel oo aan had iyo jeer idinka soo baahiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta. haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsan tahay joogitaankaaga. gambaleelka furo siina sheer garee. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe taabo si aad uga mid noqoto waalidiinta iyo asxaabta barbaarsama channel ku xidhan. markan iyo mowduuca aynu soo qaadanayno waxa uu noqonayaa dhowr arrimood, 6 arrimood oo kaa caawinaya in uu noqdo reerkaaga, caruurtaada iyo koritaanka iyo tarbiyadda caruurta aad u wadaaba in ay kuugu socdaan si degan oo isfahan ah oo markaas adigana aan wax dhib ah oo badan iyo culays aana dareemahayn. 6dan qodob ayaa kan ugu horeeya wuxuu yahay in aad noqoto qof naftiisa waqti siiya. marka aad maalintaada oo dhan hawl ku jirto ee aad caruurtii ka daba roorto eed soo shaqaysa, mararka qaar hooyooyinka oo kala shaqeeya ama aabbayaashaba, ee aad haddana hawl gurigii ah qabato, ee haddana aad caruurtii meel geyso, iskuulkii kasoo kaxayso, waxaasoo dhan waxa weeyaan maxay hayde culays iyo hawshuna mar kastoy badato waxay kugu keenaysaa ma naftaadu dareemaysaa diiqad. qof diiqadaysanna dee cid si fiican maula macaamili karo. marka qorshahaaga maalinlaha ah ugu yaraan badh saacad oo naftaada ah waxa doonaysa inaad ku qabato maxay hayde u samayso oo waxaad tiraa waqtigaas waa waqtigaygii. sidoo kale caruurtaada u sheeg, waxaad tidhaahdaa hadda waa aniga waqtigaygii, markaasay u ogaadaan iyaga laftirkoodana ay u anfacdo maadaamood adigu u tahay waalid ahaan tusaale. mar walba ay kaa baranayaan nolosha sida dadka waaweyn ay u dhaqmaan, ay kaa baranayaan, iyaguna waxay noqon doonaan qaal naftooda waqti siiya oo adiga kaa arkay ama kaa bartay insha allah markay weynaadaan oo kale. waqtigaas ama ku seexo ama ku yara jiif oo adigoon seexanin iska jiif, ama wax ku daawo ama wax ku akhriso. qofba dadka ama isboorti ku samee ama soo warwareeg. dadka bini-aadanka ah qof walba waxbuu jecel yahay, isku wada dookhna ma aha, isku waxna habi ma ku wada noqdaan. markaas muhiimaddu waxay tahay waxaad adigu jeceshahay iyo sida aad u jeceshahay inaad waqti u hesho. talabaad ayaa iyadna waxay noqonaysaa istresska. waxa la ogaaday waalid kasta oo istres haysta inuu koriyo ama caruurta uu korinaya ay noqdaan qaar iyaguna istres haysta oo istres hayo. qof aan deganayn oo markasta isku yara buuqsan oo degdegaya oo xanaaqsan, caruurta la noolna waxay dhakhaatiirta iyo dadka culimada nafsigu tilmaamaan inay exactly saas oo kale u noqonayaan, oo iyaguna ay sidaas markay dadka kale la joogaan ay noqonayaan qaar stress haystoon fadhiisanayn, qaar maxay ahayd mar walba xanaaqsan, qaar iyaguna sidaas u dhaqmaya waalidka stresska haysta aan deganayn, laabta ka deganayn oo degdeg uu ku jiro. marka inta waalidku ka digtoonaan kara ama iska ilaalin karo wax kasta oo stress ku keenaya waa inuu sameeyo. waxaa la sheegaa oo kale marka waalidku uu stress ku furan yahay ama uu isku buuqsan yahay, caruurta ma eego waxyaabaha wanaagsan ee ay samaynayaan, uma fiirsado dhinacooda wanaagsan.
waayo isagii baaba aan waqti u haynin oo wax kalaa ku furan. marka wuxuu arkayaa un markay khalad sameeyaan oo keliya taasunbaa taabanaysa, tii unbuu xanaaqeedii dabadeetna kula dhacaya. caruurtii oo dhan marka waxaabay ula muuqanaysaa qaar aan wax fiicanba samaynin oo dhib soconaysa ah. mana ka imanaysa dhinaca caruurta, waxay ka imanaysaa dhinaca istaraska haya iyo ma garanaysaa deganaan la-aantaas uu qofkaasi ku dhex jiro. marka qofku waa ku dadaalo si kasta oo uu isugu dayi karo in uu xaaladiisa ku dejiyo, xaaladiisa nafsiga ah si kasta uu ku dejinayo. salaad hadday noqoto inuu qur-aanka akhristo, hadday noqoto inuu daawooyin qaato, hadday noqoto inuu sida iminka aan soo sheeginay oo kale waqti helo oo naftiisa dee habi kaga dhigi karo, inuu biyo badan cabo oo kale. qofku waa inuu neefsasho badan, oo markuu is arka inuu xaaladdaa ku jiro intuu meel istaaga ama fadhiisto uu neefsado. neeftaasina wax badan bay neerfaha ka tartaa, istaraska way dejisaa, waxyaabaha hadii jeer lagu daweeyey ka mid taha. marka qofku waa ku dadaalo un waalidka ahi siduu u dejin lahaa xaaladiisa, uu ugu soo celin lahaa mid degan. waxay noqonaysaa ta kale waalidku in uu caafimaadkiisa ku dadaalo. caafimaadkiisa maxaa laga wadaa? tusaale ahaan hooyada, waxaynu ognahay inta badan dadka Soomaalida ah siday dhaqankeennibaa iska ahaa, dhakhtarkaynu tegaynaybaa ayaa lacag ahaa. xataa markii qurbihii la yimi, waalidiintii Soomaalidu ama hooyooyinkii dhakhtar ma tegayaan, naftoodii kama warhaynayaan. inta badan hooyooyinka Soomaalida ah fitamiinada oo dhan, khaasatan fitamiin D-ga, ironta, mar walba waxaa la sheegaa inay aada ugu yaryihiin. kuwaasina waxay keenayaan yaraantooda iyo hoosu dhacoodu xaaladii iminka aynu ka hadlaynay. waxaan oo dhan way isku xidhan yihiin, markay tani hagaagto tanna way hagaagaysaa, waa wax isku wada xidhan. istaraska ayaa imanaya qofkii marka uu hoos liigo, markasta caafimaadkiisii aanu ka warhaynin. waxaa imanaya waxyaabihii iminka aynu soo sheegaynay. marka waxaa muhiim ah haddii meel yare ku xanuunto, madax yare hadduu ku xanuuno, in aanad dhakhtarka ka cabsanin, in aanad ka warwareegin, in aad degdeg ugu tagto oo aad caafimaadkaagii ogaato, in aad 6dii biloodba mar dhiigagaaga jeegarayso, fitamiinadaad u baahan tahay ogaato, kuwa kaa maqan iyo kuwa sare kuugu soo kacay 6dii bilood ee u dambeeyey. inuu qofku dee caafimaadkiisa ku dadaalo. qof aan caafimaad qabin oo isagiiba meel laga haysto oo xanuunsan, ama dee xanuunada ilaahay baa keena, laakiin waxaan ka hadlaynaa qofku caafimaadka intii uu ku dadaali karo. jimicsi inuu sameeyo, murqihiisii oo kale. iminka waalidiin badan ama dumar badan oo Soomaali ah waxay ka cabanayaan jilbaha oo kale kama kacayaan, maxay hayde dhabarka oo kale aad buu xanuunayaa, dhabar xanuun bay leeyihiin. waxaasoo dhanna waxaa keenaya caafimaadkii murqaha ayaan lagu dadaalin. marka murqihii baa isku wada xidhmay, iyaguna waxay koosgaraynayaan ama ay keenayaan in ay xanuuno kale kuula gudbaan. marka caafimaadka waalidku inta badan ha ku dadaalo. qof caafimaad qaba uunbaa korin karaa ilmo caafimaad qaba. insha allah intii xanuunsan allaha caafiyo. xanuunkuna ma aha waxaan ka hortegi karno, oo waa wax dee qadar allah ku imanaya, laakiin intaynu ku dadaali karno, intaynu karayno ayaan ka wadaa in lagu dadaalo caafimaadka. marka la doonayo in la haysto ama la yeesho reer degan, caruur degan, jawi degan lagu noolaado, oo reerka oo dhan, qoyska oo dhan ah. haddii xataa aad tahay waalid ilmihiisa keligii la nool, hooyo caruur keligeed haysata, aad noqoto hooyo iyo caruurteedii aad noqotaanoo jawi degan ku nooloo deganaansho haysta, taasina waa waxaynu kulli wada rabno, been ma aha taas. waxyaabaha kuu suurto gelinaya inta badan ee laysla ogyahay waxaa ka mid ah
reer walba waxbaa u muhiim ah. marka maxaa kuu muhiim ah adigaagan imika i daawanaya? qoyskiina maxaa u muhiim ah? maxaa awoodda saartaan? haddii aanad ogeyn maanta ogow. marka videogan aad daawato kadib ku fikir waxa kuu muhiim ah. maxaa qoyskiina u muhiim ah? ma aha shaqsiyan adigoo keliyaata. hadday caruurtaada kula nool yihiin, adigii caruurtaada ka wada hadla. maxaa idiin muhiim ah? haddii aad tahay xaas ama nin xaasla ah ama gabadh oo xaajigeedii la joogo, ka wada hadla maxaa idiin muhiim ah. marka aa ogaataan waxa idiin muhiimka ah ayaa awoodda saaraysaan. idinkumana soo furmayaan waxyaabo badan oo kale oo dhinacyo kale kasoo furmaya, waayo waxaa ogtihiin wixii idiin muhiim ahaa. dadkao dhanna isku mid maaha, reeraha oo dhanna way ku kala duwan yihiin. reer walba waxbaa u muhiima noloshooda iyo qoyskooda. marka taas inaad awoodda saartaan inta badan wixii idiin muhiim ah markaa ogaataan kadib. taasi waxay keenaysaa in aad ku noolaataan isfahan caruurtii iyo waalidkii u dhaxaysa, ninkii iyo gabadhii u dhaxaysa, waayo isku ujeedaa leedihiin, waxbaa ogtihiin inay muhiim idiin tahay. marka ama mid ha ahaado ama laba ha ahaado, sidaa u kala horfulinaysaan idinka ayay idiin taallaa. taas ayaa muhiim ah inaa ogaataan maxaa reerkiina ugu muhiimsan. waxaa ka mid a 6 qodob bannaanka oo loo baxo ama meelaha maxaa la yidhahdaa sida miyiga oo kale, kaymaha oo kale, magaalada oo kale. haddaad bannaankeeda u baxdo, waxaa la sheegaa waxyaabahaasi in ay aad iyo aad neerfaha u dejiyaan, istaraska biyaan, maxay hayday faamilka dhexdiisana ama reerka gudihiisana ay isku soo jiidaan, isku dhowaansho iyo kalgacayl iyo isfahan. marka ay meel miyi oo kala tagaan, ama ha lugeeyaan ama ma garanaysaa ha fadhiistaan oo cunto intay qaataan hala tagaan, ama ha soo daawadaan, siday doontaba ha noqoto. meelaha cidlada ah ee miyiga ah, khasab maaha miyigu inuu noqdo inaad aada uga baxdo magaaladii, laakiin magaalo walba waxay leedahay meel koona ahoo kayn ahoo u dhow ama meel bannaan ah intaba. markaas meelahaas oo kale hadday caruurta maskaxdooda noqoto, hadday adiga maskaxdaada noqoto, intaba way u wanaagsan tahay. waxaanay keenaysaa sida ay ku taliyaan inta badan culimada nafsigu xidhiidh wanaagsan oo ka dhexeeya ninkiiyo gabadhii, caruurtii iyo waalidkii. markaas bannaanka in loo baxo ha ilaawina. haddii magaalada koonaheeda aana tegi karin, guriga ka bax, guriga inta badan ka bax oo caruurta guriga laga saaro, meelaha lagu ciyaaro ee bannaanka ah hala geeyo. idinkana markaa waxay idin tahay meel aad kusoo yara nasan kartaan intay caruurtu ciyaarayaan. iyagana waxaa u tameelay ku nafisayaan, waa la kala nafisayaa. markasta oo la kala nafisa waxaa yaraanaya buuqii. markastoo buuqi yaraanana waxaa badanaya xidhiidhkii wanaagsanaa. markaas taasina faa'iidadaas ayay leedahay. haddii aad ka heshay mowduucan ama uu ku cajabiyey, like saar, sii sheer garay si uu gaadho waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.